hagaag daawadayaal qodobada iyo qodobo kale faahfaahinta dhammaystiran idinku soo wajahan oo daawan doontaan qadar yar kadib haddii Rabbi raali ka noqdee isku soo noqod wacan oo wanaagsan daawadayaal haatana waxa aad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan aan ku bilaabay waxa magaalada Jigjiga lagu soo gabagabeeyay qiimeyn ku saabsaneyd waxqabadka garsoorka gobolada iyo degmooyinka deegaanka Soomaalida oo muddo 3 maalmood socotay Cabdiraxmaan Axmed ayaa faalada warkaasina inoo eegaya qiimeyntan muddo 3 maalmood socotay ayaa diiradda lagu saarayay tayada adeega garsoorka hufnaanta cadaaladda dardargelinta waxqabadka hay'adaha garsoorka iyo sidii loo sii xoojin lahaa adeeg cadaaladeed u hufan oo degdeg ah xilitaankii qiimeyntan ayaa waxa hadallo dardaaran uga soo jeediyay gudoomiyaha maxkamadda guud ee dowladdeegaanka Soomaalida Mudane Cabdikariin Axmed Aadan iyo gudoomiye ku-xigeenka Mudane Cabdikariin Axmed Maxamuud iyaga oo kula dardaarmay howlwadeennada garsoorka isla marhaantana ku booriyay inay si hufan oo daacad u gutaan waajibaadkooda shaqo mas'uuliyiinta ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay ilaalinta madax bannaanida garsoorka ku dhaqanka cadaaladda iyo ka fogaanshaha wax kasta oo wiiqi kara kalsoonida shacabka iyo sumcadda hay'adaha garsoorka waxay sidoo kale ugu baaqeen inay howlwadeennadu ay mudnaanta siiyaan adeeg hufan oo isla xisaabtan dhab ah bulshadana ugu adeegaan si waafaqsan sharciga maamulka degmada Qabri Dahar ee xarunta gobolkaasi Qorrax ayaa dhagax dhigay